abaabulkii u dambeeyay oo dagaal oo socda Muuse Biixi iyo Nuux Taani oo ka hor qudbadeeyay maanta hubadii u dambeysay maleeshiyaadkooda kuwanta lagu sheegay waa qayb shabaab iyo Puntland oo Soomaaliya ka mid ah imikana waxay diyaar u yihiin inay bari u kacaan xagga Sool intani Sool bay tagaysaa madaxweyne Dani oo shir degdeg ah la galay saraakiisha ciidamada golaha dhaqanka oo ku soo xarooday gobolka Sool warbixintii u dambeysay ayaanu halkan idinku soo diyaarinay halka aad kala socotaan waa Gooja Cadde Media haddii aadan horay uga mid ahayn baahda Gooja Cadde Media imika follow soo dheh gala dagaal jamaahir cibaadaysi kullis ka habe damaystir qaniimad qalas waxaa socday abaabulkii u dambeeyay ee dagaal kaasi oo ka socda magaalada Hargeysa maleeshiyaadka maamulka Somaliland ayaa maanta ku soo bandhigay magaalada Dararweyne maleeshiyada 6 bilood ee u dambeysay ururinayeen kuwaas oo ah hubadii u dambeysay Muuse Biixi iyo Nuux Taani ayaa ka hor qudbadeeyay maleeshiyaadkaasi iyagoo sheegay in maleeshiyaadkani geyn doonaan jiidaha hore ee gobolka Sool kuwanta lagu sheegay waa qayb shabaab iyo Puntland oo Soomaaliya ka mid ah oo cilmi cusub keentay oo leh si qabiila ama hayb ah ayaa u soo dal dhexe oo aan Soomaaliya ahayn Soomaaliland ahayn ee magac haybeed taasi mid suura gelisay ma ka suusa gelimayso oo qura xuduudda Soomaaliland imikana waxay diyaar u yihiin inay bari u kacaan xagga Sool intani Sool bay tagaysaa waxay nagu soo duulay Puntland oo la isxiniya taabanaya oo runta la isku sheegaya nin walba waxay dhiishiisu u gooysa ayuu leeyahay meeqa sarkaal madax lagaga dilay imisaanin mudan maalmahaad ku gagay ragumoodi jiray masaayib dadcun ah meydkoodu yaal Muuse Biixi iyo maleeshiyaadka uu hogaaminayo ee naflacaariga ah ayaa rafashadoodii u dambeysay maraya waxayna haatan quus ka joogaan 32 sano maleeshiyaadka ay ururinayeen iyagoo 6 bilood maleeshiyaadkii dhibooyga la geliyay xilligan ku tijaabinaya gobolka Sool oo aan gacantoodaba ku jirin imikana dhankaas iyo Garowe madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa shir degdeg ah la galay saraakiisha ciidamada Puntland isagoo madaxweynuhu saraakiishaasi ku amray in si degdeg ah loo soo afjaro maleeshiyaadka ku go'doonsan Gooja Cadde shirkan saraakiisha iyo madaxweynuhu galeen ayaa daba socda kadib khudbadii uu ka jeediyay baarlamaanka Puntland isla markaasina uu sheegay in dawladda Puntland ay si cad u difaacayso shacabka gobolka Sool